waxaynu maanta ka hadlaynaa khilaafka u dhaxeeya Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud. yaa qaldan labadan mas'uul waxa ay isku hayaan ayaan falanqeynaynaa. dagaalka u dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani waa dagaal runtii dhawaan bilowday sida aynu kulligeenba ka warqabnay. waxayna sheegeen labadan mas'uul in dagaalka u dhaxeeya uu yahay mid ka imaanaya dastuurka dalka u yaala iyo nidaamka federaalka ah. talo nidaamkan federaalka ah iyo arrimaha dastuurka isku hayaan waa kuwa shalay bilowdayba iyo daraad way intii ka horreeyay saaxiib ay ahaayeen way isla socdeen doorashadii way isla galeen goormay imaatay khilaafka dastuurka iyo dhanka federaalka ka imaanaya waayo khilaafka dambeeyay dastuurka iyo federaalka horreeyay intaan dambana meesha waa yaala mana aysan jirinin waxa arinta ka taagan oo labadooda oo hadda ka horreeya وسؤال أوبا هنا إن مركورة كبلونه فهم كقوادن خلافك لبدن مزرو دحية سوى بابا هاته بل أنو يرقدنه خلافك للشيء إنه كي مادي دنك تستورك إيه نظامك فدرالك بل سين أفهمه وحمرك على إسكو هايو إيه وحا إيهين إيه عدة قلدن با هدينو فدرالك كبلونه أدون كان مانتا أنو تشوغنو حاكتشرا بقول يساقاشن إيه شان ودن باكتشرا كلية شن إلا باتن دولدود أيها هايستا نظام كلو يقانو فدرالك انت كانت ما هايستا وحلو يقانو فدرالك قارة أفريقيا إنو دقنا هاي كلية أفردال أيها مركاسي كأه وحلو يقانو فدرال انت كانت مجرتو دولد هايستا فدرال كدواد لحدن دولدود باكتشر أفريقيا سيدا درادت كلية أفرد دولدود أمبا فدرالا انت كانت فدرال معه أفرد دولدود وكلاء نيجيريا إثيوبيا iyo laba jasiiradood oo midna Comoros ay tahay midna ay Cyprus tahay afartaas dawladood kaliya ayaa ka jira wax nidaamka federaalka loo aqoonsan yahay oo ka tirsan dalada caalamiga ah ay isugu yimaadaan dawladaha markaas federaalka ah dawladda Soomaaliya kamid ma aha dawladaha ay caalamka u aqoonsan yihiin inay haysato ama ay kamid tahay daladaha ama dalada weyn ay ku midaysan yihiin dawladaha federaalka caalamka waxa aynu isku hayno number 1 horta ma ahan wax adduunka inuu aqoonsan yihiin oo manihiin dad buuxiyay shuruudo lagu talagalay inay federaal noqdaan federaalku ma aha choice federaalku waa xaalad khaas ah oo dalalka qaybo kamid ah ay gali karayaan shuruudo lagu talagalay dawladdu inay federaal noqon karto ama ay kamid noqon karto daladaha iyo dawladaha ku midoobay federaalka waxa kamid ah in dadka dalka degan ay yihiin dad kala qoomiyad ah ama ethnic group kala duwan ah inay kala luqad ku hadlayaan iyo inay kala diimo ay yihiin dad kala duwan nidaamka isku keeni karaya umba marka federal la yiraahdo waxaana jira dalad ay ku midaysan yihiin 25 ka dal ee adduunka maanta federaalka loo aqoonsan yahay ay markaasi ay ku midaysan yihiin dhowrka dawladda Afrika ku yaala markii aad fiirso tusaale dawladda dariska nala ah ee Ethiopia waxa ku nool 9 qowmiyadood oo kala duwan waxayna ku hadlaan in ka badan 80 luqadood oo kala duwan dawladda Nigeria waxa ku nool 250 qowmiyadood oo kala duwan intaas in la mid ah oo luqadood oo kala duwan way ku hadlaan labada jasiirada hore ee Cyprus la yiraahdo waxa degan laba qowmiyadood oo kala duwan midna ay Turkish yihiin midna ay Greek yihiin waxayna ku hadlaan Turkish iyo Greek bay ku hadlaan jasiirada kale ee Comoros la yiraahdo ayaduna ilaa 5 qowmiyadood oo kala duwan baa degan waxayna ku hadlaan ilaa 3 luqadood oo kala ah Swahili ama Kiswahili wax loo yaqaano Arabic iyo French ay ku hadlaan sida daraadeed marka anagu waxaynu nahay hal qowmiyadood hal luqad leh ma buuxin karna marka category-gan caalamku nooma aqoonsan karayo mana gali karno daladaha ay ku midaysan yihiin dawladaha federaalka marka halkaas aynu ku harnay dad badan baana nala qaba oo Afrika ah oo federal sheegta balse aan federal ahayn aan loo aqoonsan waa Kenya kamid tahay haddaba marka su'aashu waxay tahay yaa anaga federaalka inuu sameeyay xagee nooga yimid yaa inoo saxiixay goormaan sagalnay badan federaalka ah iyo dastuurkan aan dhamaanin ee muranka iyo qajajaciisu ay maanul taagan tahay waa halka umadu ay ka fahmi karto cidda qaldan iyo cidda saxan iyo waxaynu isku hayno iyo goorta ay waxaani inoo yimaadeen waa halka aynu u baahanahay inaynu u laabano mar walba oo khilaaf ka yimaado dastuurka iyo nidaamka federaalka ah nidaamkan federaalka ah iyo dastuurkan qabyada ah ayaa dhamaanin waxaa dhalay heshiiskii caanka ahaa ee loo yaqaanay Kampala Accord ee la saxiixay 9 June 2011 laguna saxiixay magaalada Kampala ee dalkaas Uganda waxa heshiiskan saxiixay 4 qof oo kala duwan qofka ugu horeeya
ومدحوينيه كميل gaarka ahaa Shariif Sheekh Axmed qofka labaadna waa gudoomiyihii hore ee kumeel gaarka ahaa baarlamaankaasi jiray qofka saddexaadna waa Yoweri Museveni madaxweynihii hore Uganda ilaa haddana madaxweyne ah qofka afaraadna waa Augustina Mahiga ninkii ahaan jiray ergey qaramada midowga u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya una dhaqmi jiray inuu yahay sida madaxweyne ay markaasi ummadda Soomaaliyeed ay dooratay ayuu ahaa waxa heshiiskaasi markii la saxiixay wixii ka dambeeyay furintiisii gacanta loo geliyay Cabdiweli Cali Gaas oo markaasi gadaal ka noqday ra'iisul wasaarihii dalka isla markaasna dalka geliyay nidaamka federaalka ah isla markaasna sameeyay asagu dastuurkaas muranka badan dhaliyay waxaana asaga lagu bedelay oo heshiiskaasi uu qayb ka ahaa inuu xilka ka dago madaxweynihii hadda u dambeeyay ee dalka Soomaaliya madaxweynaha ka ahaa markaasna ra'iisul wasaare ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa in meesha laga cayriyo uu heshiisku qorayay kuna heshiiyeen madaxweynihii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo nimankii kale ajaanibta ahaa isla markaasna Cabdiweli Gaas baa yimid oo markaasi fuliyay heshiiskaasi loo yaqaano Kampala Accord example baan siinaya constitutionka waxaa la haystay 6 sano nimanka IFCC Independent Federal Constitution Commission كنت مليون وحيران وأكو بحضي ولا ديار معي أنا نقول نقول شراه رود مابك simple وان سميني أيام كلاو رجني قد لي هذا committee of experts بان أنا مجعبي بنا مسرحان أو مضحك هنيك اللي هذا جواري وتقرنا إنسان قدامي برلمانك حوش بانو يري وحنكو يري first draft of the constitution February 20 وإنه سووا قرنته رود مابك أنا أوكنته Believe me, February 20, the first draft of the constitution was ready. The second draft, final draft كنا وهاي إلا كان April 20, 2012, 2 months later, and he delivered. They delivered. May السنة سقوط تجني وحلي البروتوكول سبعة لقوا صدري جون لبلا كده حنكون صحيحني نيروبي. waxaan geynay buu yiri dalka Ethiopia ka bacdina Ethiopia waxa looga daray buu yiri arrimo la xiriira protocolka ka bacdina waxa la geeyay buu magaalada Nairobi halkaas oo lagu dhameystay markaas dhaba u fiirsan marka waxaad arkaysaa inuu bahalkaasi uu ahaa mid ay Kenyaanka iyo Ethiopianka iyo dadka la midka ah ay markaasi ahaayeen kuwii qortay oo dastuurkii ugu degdega badnaa inta laga warqabo dunidan casriga ee maanta aynu joogno oo dal loo sameeyo in laba bilood gudahooda markaasi la bilaabo dastuur la dhameystiro lana ansixiyo waa runtii cajaayib weeye oo laba bilood oo kaliya markaasi lagu dhameeyo ma jirinin cid isweydiisay aawa dastuurkii dalkeena u lahaa oo aftida shacabka loo qaaday 1960 waa maxay sababta looga guurayo hadii ay wax ka qaldan yihiin ama qaybo kamid ah la diidan yahay ma asaga lagu dul shaqeeyo oo laga bedelo cid isweydiisay ma ay jirto waxa la yaab leh dawladaha Afrika iyo caalamka iyo dunida Carbeed ba ku yaala oo dagaalada sokeeye ay ka dhaceen ma jiro dal sidanadoo kale dastuurkiina laga bedelay ku meel gaarna markaasi la geliyay nidaam federaal ah ana markaasi dusha laga saaray oo aysan markaasi buuxin karin shuruudiisa ama aan lagu talagelin dad annaga oo kale taa ku meel gaarnimadu marka waa sheeko ka baxsan Kampala Accord waa arrin ka soo bilaabatay Djibouti lana weydiinayo Ismaaciil Cumar Geelle laakiin Kampala Accord waxyaalaha ay dhashay waxa kamid ahaa federaalka iyo constitution kan qabyo qoraalka ah ee maanta inoo hor yaala ee dhamaan la madun ay ku heshiin laadahay intii loo qoray baa lagu heshiin laayaa dastuurkaas iyo nidaamkaasi wax alla wixii ka yimaada waxa aakhari adduun la weydiinayaa Shariif Sheekh Axmed oo xilligaasi madaxweyne ahaa Cabdiweli Cali Gaas oo ah ninkii fuliyay oo xilka loo keenay inuu fuliyo kana shaqeeyo maxaliya taskigi hor yaalay oo Kampala Accord ka soo baxay asaguna uu ku qancay inuu markaasi uu fuliyo Shariif maxaa ninka yiraahdo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah gudoomiyihii baarlamaanka oo asaguna khilaafkii ugu badnaa ee Kampala Accord keenay qayb ka ahaa Faroole madaxweyne Puntland ahaa isla markaasna odayaashii keenay nidaamka federaalka ragii uu oleynayay u weynaa iyo Jawaari oo gacantiisa ku qoray ayaa la weydiinayaa wax walba oo ka yimaada nidaamkaas federaalka ah ee ummadda la dul saaray iyo dastuurkaas aanan aqoonin cid qortay iyo sababta u qaadanay iyo meesha laga keenay midnaba halkaas la weydiinayaa aakhri adduunba waxa runtii la yaab leh isla ragii qoray
ayaa ka mid ah ragga aynu arkaynay oo sanadihii lasoo dhaafay sida ba'an uga qaylinaya dastuur lagu cayaaray dastuur lagu tuntay iyo xuquuqdooda dastuuriga ah oo markaasi meel looga dhacay intii aan sheegay ayaa aabbihi hooyo ah aan iri isla ayagaasaa ka qaylinayay muddooyinkii lasoo dhaafay haddii ayagu ay ka qaylinayaan markaa waa maxay sababtee noogu qaadeen miyaysan akhrinin miyaysan fahminin miyaa lagu qasbay cid garan karta ma jirto isla ayagii baana maanta doonaya inay dalka inaan maamulaan haddaan kusoo koobo su-aashii ahayd yaa qaldan سعيد عبد الله الدني يا حسن الشيخ محمود وحا اسكو هيان لا خريره فدرالكا يا دستور كبا حقيقته waxay tahay waxay loo isku hayaan nidaam federaal ma ahan dastuurna ma ahan waxa la cunaa la isku hayaa mar horena waan ka sheekeeyay hadana waa idin sheegaya waxa la isku hayo waxa qoran ee dastuurka midna ma ahan bil ka hor bay saaxiiba ahaayeen wada qoslayeen doorashadii baa wada qoslayeen oo saaxiiba la ahaa intaas oo contract baa la gala oo la isla cunaa gorma la culooba gormu nidaamku soo baxa gormu federaalku soo baxa gormu qodobada Saciid Dani uu cuskanayo ay soo baxeen ween caawadi lacag la siiyo suurtagal Saciid harta halka oo tago aan markaa ummadana u sheego waxaan niri sheegaya waxba kama jiraan waxa la isku hayo waa xoolo iyo dhaqaalo suurtagal bari la heshiyo waana suurtagal in la heshiinin laakiin waxaan naloo sheegayo ay siyaasiyiintu noo sheegayaan ma aha wax dhabta ah ee la isku hayo laakiin wax ka duwan waxa la isku hayo intaasaan kusoo koobaya tadib saga soo laabanayno عندك تاجسين بدرو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.